wasaaradda caafimaadka Somaliland Maxamed Cabdi Xergeeye oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda caafimaadka Somaliland ee magaalada Hargeysa ayaa beeniyay wararka sheegaya in ay baxsadeen laba xubnood oo kamid ahaa dadkii laga helay xanuunka COVID-19 agaasimuhu waxa uu uga digay dadka faafinaya wararkaasi inay ka taxadaraan waxaan shalay iyo maqlayay warar huuhaaya oo sidii ay dadku ay yihiin dad xidhan oo maxaabiis la leeyahay hebel baa baxsaday dadku ma aha maxaabiis waa dad caafimaad arintiisa ku jira oo la socda dhaqaatiirta oo qofku de xanuunka laga helo ama xanuunka lagu cadeeyaa laba mid uu noqonayaa qof aad u xanuunsanaya oo isbitaal la geeyo iyo qof ladan oo aqalkiisa iska jooga iyo qof aan calaamad ba lahayn oo talooyin la siiyo dadkan saddexdii waxay ahaayeen dad aan calaamadaba aanay ka muuqan marka waxa la siinayaa talooyin caafimaad dad xidhan iyo dad meel lagu ururiyay iyo midna maaha talooyinka la siinayaa waxa weeye koow inay aqalkooda joogaan ilaa labada week dambe soo socda inta haddana dib looga hubsanaya inuu xanuunkii ka baxayo in kale jirkoodu buu ku jiraa laakiin iyaga waxa dhibaho imika xaaliyan ama imika ahaan uu ku hayaa ma jiro malaha xumad malaha calaamad kale malaha qufac naqasmahayo waa dad caadiya oo aan wax calaamado dareemayaan aanay jirin marka ma aha dad la jeel la geeyo meel lagu xidhay maaha marka dadka waxa qoraya inay de hadaanay caafimaadka garanayna inay bulshada jahawareerka ka daayaan baa fiican waxa la yiraahdo uu baxsaday qof meel lagu hayo oo meel lagu ku xidhan baa la yiraahdaa uu baxsado dadku jeel kuma jiraan dadkaasi wasaaradda horumarinta caafimaadku way la socotaa xiriir joogto ah bay la leedahay habeen iyo maalinba dhaqaatiirtu waanay booqdaan waanay la hadlaan waanay arkaan waxaana ilaa imika aan idin cadeynayaa inaanay wax xanuuna iyo wax xaalado ku soo biiray midna aanu jirin dhinaca kale agaasimaha wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa sidoo kale sheegay in xanuunka laga hubiyay 1601 qof kuwaas oo uu agaasimuhu tilmaamay in aanay jirin wax calaamado ah oo lagu arkay dadkaasi haddii aan idin sheego caseska la screen gareeyay ee laga hubiyay xanuunku waxa weeyaan 1601 da wax calaamado ah oo lagu arkay oo laga shakiyay ma jiro sida aad la wada ogsoon tihiin waxa iyadana aanu ka qaadnay shaybaadho dad oo aanu shaybaadhada mar kale haddana aanu eegaynaa oo aanu diraynaa iyadana aanu wixii ka soo baxana la wadaagi doono bulshada ugu dambeyn agaasimaha ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan Somaliland inay qaataan talooyinka caafimaad ee lagaga hortagayo caabuqa COVID-19 waxaan doonayaa inaan la wadaago bulshada in aanay jirin wax case oo laga shikiyay oo suspect ah oo imika meel jooga dadka ku jira wali quarantine waa 16 qof waxa kale oo aan bulshooyinta u sheegayaa in aan halkan u marino fariimaha wacyigelinta ah ee ay wasaaraddu bixiso waxaan mar kale ku celinaynaa oo aan mar saddexaad ku celinaynaa dadweynuhu inay qaataan fariimaha ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay soo saarayso Maxamed Jookar Honkable TV Hargeysa shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisha